بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan ku soo jirnay kitaabkii ajruumiga ee naxwaha carabiga, gaar ahaan waxaynu ka soo hadlaynay baabu macrifati calaamaati alciraab. waxaynu ka soo baxnay aqsaamulciraabkii rafca iyo calaamooyinkeedii. maantana halkan waxaan ka gelaynaa nasbo iyo calaamooyinkeeda. wuxuu yihi marka sheekhu, walinnasbi khamsu calaamaatin. walinnasbi nasba waxaa u sugnaaday khamsu calaamaatin calaamooyin oo shana. alfatxatu ayaa u sugnaatay fatxo, waalalifu alif baa u sugnaatay, waalkasratu kasraa u sugnaatay, walyaa-u ya, waxadfu nuuni nuunka oo la gooyo ayaa u sugnaaday. kelimadu haddii meel nasbo ay dhacdo, shantaa mid kamida unbaa nasbo u noqonaya. kelima carabiya meel oo nasbo oo maxalu nasba haddii ay dhacdo, yacni shantaa midkood ayaa u noqonaya calaamaatu nasbe, ayaa u noqonaya oo aakhirkiisa yani ayaa noqonaya. markaa sheekhu uu sii wado wuxuu yihi, wuxuu deedna tii ugu horreysoo fatxadu ka bilaabay oo asala, kuwa kalena iyada ayay naa'ib ka yihiin. fa ama alfatxatu fatxada fatakuunu waxay noqon calaamatan calaamay noqon, linnasbi kordhiga ayay calaamo u noqon, fii halaathati mawaadica meelo oo saddexa ayay u noqonaysaa. fil ismi ismigii fiigiisay u noqon, almufradi ee la keli yeelay, wa jamci tagsiiri jamcii la jejebiyeyna way ugu noqon, walficli walfil ficlina fatxadu calaamay u noqon, ficilkii almudaarici ee mudaaric idaa dakhala markuu galo calayhi isaga naasibun wax kordhiga, oo walam yatasil idaa dakhala calayhi naasibun markuu galo walam yatasil xaal uuna la xidhiidhsanin biaakhirihi aakhirkiisa shay-un shayna uuna la xidhiidhsanin. marka sheekhu wuxuu inoo bilaabay fatxadii ayuu markii hore si guud ahaaneed markuu uga soo hadlay calaamooyinka oo uu yihi nasba shan calaamay leedahay, ayuu haddana si faahfaahsan ayuu uga hadlayaa. markaasuu deedna wuxuu kaga bilaabay fatxa, maxaa yeelay iyada ayaa asala. markaa saddex meelood saddex mowdac saddex meelood ayay fatxadu calaamo u noqotaa nasbaha. nasbuhuna waa kordhig, fatxaduna waa kordhig, labaduba kordhig bay isleeyihiin. laakiin isdilaaxa ayaa nasbadana aqsaamulciraabkay ka mid tahay, fatxadana waa kordhiga caadiga oo iyada calaamadeeda. marka mowdaca ugu horeeya sheekhu wuxuu ku sheegay ism mufrada inuu yahay. waxaa inoo soo horumartoon horay usoo qaadanay ismiga mufradka ah tacriifkiisa. haddii la yidhaha maa huwa alismu lmufradu, waxaa la odhanaya horaan uga soo hadalay. maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa'i alkhamsati in la yidhaahdo iyo sharxeeda waa inagii cashirkii hore kusoo qaadanay. tusaale marka haddaan soo qaadano, tusaale basiida iska soo qaado. ficilka ra-aytu iyo zayd iska adeegso. ra-aytu zaydan, tusaalahaas ra-aytu waxaan arkay zaydan zayd. marka wa icraabuhu ra-aytu zaydan marka la ciraabayo, ra-aytu waxaa la odhan ficilun wa faacilun, waa ficil iyo faacil, oo ta'duna waa faacil, ra-aaduna waa ficilki. zaydan mafcuulun bihi waa mafcuulu bihi, yani kii falku ku dhacay, aragtidu ku dhacday. mansuubun waa la kordhigay, wa calaamatu nasbihi kordhigiisa calaamadiisuna alfatxatu daahiratu waa fatxada ka muuqata. zaydan maxaa yeelay liannahu isagu ismun mufradun waa ism mufrada. ism mufradana dee calaamatu nasba waxaa u noqota fatxa. marka ismiga mufradka ah mar fatxadu way ka daahiri sidaa hadda aan mithaalinay, marna way ku qadaran tahay. markay ku qadaran tahay waa marka laba xaalo ahoo haddii ismiga mufradka aakhirkiisa alif ay tahay
fadxada waa lagu qadari sida fataa iyo muusa iyo ciisa. haddii yaa-ulmutakalim aakhirkiisa ay tahayna isagana waa lagu qadari. bal hadda midba mar aan mithaalino. midka hore markii alif u dambaysa ah, laqiitu fataa oo kale mathalan, laqiitu alfataa, waxaan la kulmay ninkii dhalinyarada ahaa, laqiitu alfataa. marka wa icraabuhu laqiitu ficlun wa faacilun. alfataa mafcuulu bih, waa mafcuulu bihi mansuubun waa la nasbiyey, wa calaamatu nasbihi kordhogiisa calaamadiisana fadxatun muqadaratun cala alalifi, waa fadxo oo qadaran oo alifka ku qadaran. fataa manaca waxaa diiday min duhuurihaa inay muuqato atacaduru cudurtow, oo aliftaas sibsibka ah sidaan in badanba ka soo hadalnay, xarakada ma aqbalayso, waa mustaxiil xaraka in la xarakay. maxaa yeelay liannahu ismun maqsuur, waa ismiga loo yaqaana naxwada dhexdeeda maqsuur. ismiga oo alifta u dambayso ismi maqsuur baa la yidhaha. midka ya-da u dambayso oo qaadi oo kale ahna ismi manquus baa la yidhaha. marka qaadiga maanta isaga way ka daahiri oo wuxuu la mid yahay zaydan oo kale oo ra-aytul qaadiya ayaad odhan. maxaa yeelay waxaa loogu qadaraya hiqal bay ahayd, culays. fadxaduna waa khafiif oo maaragtay wax culaysa male. marka yaa-ulmutakalimka ismiga u dambaysay mufradka, qaabaltu ghulaamii tusaale u qaado. qaabaltu waxaan qaabilay ghulaamii wiilkaygi. wa icraabuhu qaabaltu ficlun wa faacilun. ghulaamii mafcuulu bihi mansuub, wa calaamatu nasbihi fadxatun muqadaratun calaa maa qabla yaa-i lmutakalimi. waa fadxo oo la qadaray oo xarafka ya-da ka horeeya lagu qadaray. manaca waxaa diiday min duhuuriha xarakadaasi inay muuqato ishtigaalulmaxali, booskii ayaa shuuluumay bixarakati lmunaasabati, xarakada ya-da munaasabka oo ah wahya lkasratu weeye. wa ghulaami mudaaf wa yaa-ulmutakalimi mudaafun ilayhi. waad baran doontaa mudaaf iyo mudaaf ilayhi, hadda weli maada gaadhin hadday naxwada hadda kugu horeyso. mabniyun waa la bineeyey ya-da cala sukuuni baa lagu bineeyey fii maxali jarin, hoos dhig maxalkiibay taallaa. maxaa yeelay maxalka ay dhacday waa mudaaf ilayhi maxalkii. maxal bimacnaa booska, booska ay dhacday waa booskii mudaaf ilayhiga. mudaaf ilayhigana weligii waa hoos dhigaya. maxaa yeelay oo maxaa loo bineeyey, maxay xarakad uga daahiri weyd ya-da? liannahu ismun mabniyun, waa ismi oo mabniya laa yadharu fiihi icraab, oo icraab ayna ka daahireen. ismigii mufradka ahaa waxaa calaamatu nasba u noqda fatxa. haddii marna may ka daahiri marna kama daahirayso. markay ka daahiri ra-aytu zaydan, ra-aytu muxamadan, markii ismiga aakhirkiisa alif iyo yaa-ulmutakalim midna aan lala xidhiidhin. haddii alif iyo yaa-ulmutakalim midkood lala xidhiidhiyana way ku qadaran tahay oo sidaa aan tusaalaynay, marna litacadur bay ugu qadaran tahay, marna lilmunaasabati ayaa loogu qadaray. soo soco marka mowdica labaad waa jamcu tagsiir ee sheekhu uu ka hadlay. tacriifkiisa horuu inoo soo maray in jamcu tagsiir haddii lagu yidhaha maa huwa jamcu tagsiir, maa tagayara fiihi binaau mufradihi, waa waxa uu doorsoomo mufradkiisa siiqadiisu marka la jamcinayo cinda aljamc. maa tagayara fiihi binaau mufradihi bimacnaa siiqadiisu ay doorsoonto. marka la jamcinayo cinda aljamc mufradkii siiqadiisu ay doorsoonto. doorsoonadii lixda ahaayan soo marnay. marka isagana waa sida ismiga mufradko, marna fadxadu way ka daahiri marna way ku qadaran tahay. bal hadda tusaalooyinkan dhegeyso. ra-aytu rijaala, waxaan arkay raggii. wa icraabuhu ra-aytu ficlun wa faacilun. alrijaala mafcuulu bihi mansuub, waa mafcuulu bihi. mafcuulu bihina dee waa la nasbiyaa, waa la nasbiyey. wa calaamatu nasbihi kordhigiisa calaamadiisu alfadxatu daahiratu, waa fadxada ka muuqata. alrijaala maxaa yeelay liannahu jamcu tagsiir wey. hadday alif oo u dambayso ismi maqsuuru noqdo waa sidii ismiga mufradko waa lagu qadari. tusaale ahaan ra-aytu lusaara, waxaan arkay maxaabiistii. usaara waa jamaco waxaa la jamciyey asra, ayaa usaaraa lagu jamciya. asrana asiir bay ka timid, marka waa jamcu ljamc waxa la yidhaahda weeyaan. ra-aytu lusaara maxaabiistii baan arkay. wa icraabuhu ra-aytu ficlun wa faacilun.
alusaara mafcuulu bihi waa mafcuulu bihi mansuubun waa la nasbiyey wacalaamatu nasbihi fatxatu muqadarat cala alalifi manaca min duhuuriha atacaduru liannahu ismun maqsuur. ra-aytu waxaan arkay alhunuuda gabdhihii hindooyinka ahaa. markii hore maxaan idhi ra-aytu rijaala waa jamcu tagsiir oo rag ah oo ay ka daahirtay. ra-aytu lhunuuda waa jamcu tagsiir oo rag ah oo dumar ah oo fatxadii ay ka daahirtay. waxaan arkay gabdhihii hindooyinka ahaa. wa ciraabuhu ra-aytu ficlu wa faacilun alhunuuda mafcuulu bihi mansuub waa mafcuulu bihi oo waa mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxatu daahira liannahu jamcu tagsiir. jamcu tagsiirka oo ay ku qadaran tahay rag iyo dumar labadaba wuu noqdaa. ra-aytu lusaara waa rag isagoo ay ku qadaran tahoo wax dhadigana waaka. ra-aytu lcadaara waxaan arkay gabdhihii bikaarooyinka ahaa. wa icraabuhu ra-aytu ficlu wa faacilu alcadaara mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadarat cala alalifi manaca min duhuuriha atacaduru liannahu ismu maqsuur. halkaa maxaan kaga soo baxnay mowdicii labaad oo fatxadu ay lahayd oo jamcu tagsiira oo fatxadii marna ay ka daahiri sida ra-aytu rijaala ra-aytu lhunuuda marna ay ku qadaran tahay sida ra-aytu lusaara iyo ra-aytu alcadaara oo kale. mowdica saddexaad ee fatxadu ay degto waa ficil mudaaric oo wax nasbiya uu galay aakhirkiisana uuna waxba la xidhiidhsan. tusaalihiisu waxa weeye lan adriba zaydan. tusaale isaga qaado basiid ah. lan adriba garaaci maayo zaydan zayd. wa icraabuhu lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin. marka lanta loo abtirinayo saddexdaasaa laysu raacinayaa. lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin. xarfu nafyin diidda xarafkeed weeye oo ficilka ka dambeeyay anfiyeysaa oo lan adriba garaaci maayi wax garaaca ma dhacayo saasay ka dhigan tahay. lan ajlisa fadhiisan maayo ficilka ka dambeysa. sumiyat xarfu nafyin liannaha tanfi lficla ficilkay anfiyeysa. wa nasbin xarfu nasbina waa la yidhaah liannahaa tansibu lmudaarica ficilka mudaaric bay nasbin. wa istiqbaalin xarfu istiqbaalna waa la yidhaah liannahaa tumaxidu macnaahu lilistiqbaal baynamaa kaana yaxtamilu lxaala walistiqbaal. ficilka mudaaric markii oo ayna lanta iyo wixii lamida ku jirin wuxuu u dhexeeyaa oo suurtagal ah xaalo iyo istiqbaal wax markaa dhacaya ama wax dhici doono. tusaale ahaan haddaad tidhaa adribu lanta intaan ka qaadno adribu haddaad tidhaa markaa aada hadlayso ayaan garaacayaa way noqon kartaa. adribu waan garaacayaa haddaan dhegta ku hayaa iyo hadalkan kabacdi baan bilaabayaa. xaalo waa intaad hadlaysa waxa dhacaya. istiqbaalna waa waxa wixii hadalkaaga ka dambeeya wixii dhaca. maadina hadalkan aad hadlaysa wixii ku horeeyey ayaa maadi la yidhaah. marka ficil mudaaric wuxuu suurtagal ka yahay xaaliya istiqbaal inuu markaa dhacayo iyo inuu dhici doono. ama lantu markay gasho macnihiisi waxay ka dhigaysaa mustaqbalka. markaad tidhaha lan adriba garaaci maayi hadalkaygan inta ka dambeysa wax garaacoo iga dhacaya ma jiro saas ayuu noqonaya. saa darteed lan markaad had iyo jeer u abtirinayso waa inaad tidhaha lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin. xarfu nafyin weeyo tanfi lficla wa nasbin weeyo tansibu lmudaarica wa istiqbaalin weeyo tumaxidu macna alficli lilistiqbaal. ficilka macnihiisiibaa waxay u badhax tiri ay ka dhigi yaano wax soo socdo. adriba ficlu mudaaricu mansuub bilan wa calaamatu nasbihi alfatxatu daahira liannahu ficlu mudaaricu dakhala calayhi naasibu walam yatasil biaakhirihi shay. faacilkii awe marka lan adriba zaydan wa faaciluhu damiiru mustatirun waa damiir qarsoon fiihi isaga ku qarsoon wujuuban waajibnimona loo qariyo in lasoo muujiyo ayn banaanayn. taqdiiruhu inuu banaanka yimid haddaan qadarno luqadda carabta lama soo muujin karo in la qariyaa waajibaan nidhi. waa waajib macnihiisu maa maxay bimacnaa laa yumkinu in lagu hadlo suurtagal maaha saasay ka dhigan tahay. laakiin haddaan qadarno inuu banaanka yimid taqdiiruhu ana weeye ana iyo wixii lamid. marka ana haddaad sii ciraabi ana damiirun munfasilun mabniyun cala sukuun fi maxali rafcin faacilun buu noqonaya.
زيدا ومفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة لأنه اسم مفرد. فعلك مضارع هدو معتل الآخر بالواو يهي أما معتل الآخر بالياء يهي فتحدي إساقنا ويك ظاهري سيدا مركو صحيح الآخر كي يهي وكالي. هذا لن أضربها مركو هوري فعلك مضارع هدي ألف قدام بيسا أما واو أما ياء ألف هدي قدام بيسا سيدا مثلا رما يرمي يخشى أو كالي يرضى هدي ياء قدام بيسا سيدا يرمي يهدي هدي واو قدام بيسا سيدا يدعو يغزو صدح هدي ميدون قدام بيسا وحالة إلى معتل الآخر ميدو آخر كيسو بوكو هدي صدح ذا ألف يا واو يا ياء صدح ذا من آخر كيسا هنا هاي سيدا يضرب إيا أضرب إيا أجلس إيا أأكل إيا أذهب إيا أقول إيا وحي لمدة وهلو مجرى وحال إلى فعل مضارع وصحيح الآخرة أيا اللي هذا فعل مضارع وصحيح الآخرة أيا اللي هذا مركا فعل مضارع وصحيح الآخرة فتحة ويك ظاهري فعل مضارع ومعتل الآخر بالواو أما معتل الآخر بالياء أنا فتحة ويك ظاهري وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة بالأورد. أما فعل مضارع ومعتل الآخر بالألفية فتحة ويكو قدران تهي للتعذري محايا يلي فتحة ألفته إن لحركة صورة قلمة بلا تتسالو ينكينها واكو وانا ايك سوى آخر كي سوى ايتا. لن أدعو بكرا بكر ييري مايو وإعرابه لن حرف نفي ونصب واستقبال لن حرف نفي دي حرف كيدوي محايا يلي فعل كي أنفن ونصب كردق حرف كيوي واستقبال استقبال حرف كيوي فعلك معنيه سيبا وحي كدقي وح مستقبل وصوصه. أدعو فعل مضارع وفعل مضارع منصوب ولا نسبية بلن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وفعل مضارع أو وح نسبية قال ولم باق الشيء آخر كيسنا وحوال لما حرير سنينه ألف اثنين ألف اثنين واو الجماعة ياء المؤنثة المخاطبة نون التوكيد نون النسوة شنتا منا لما حرير سنين. لن أدعو فاعلك أول وفاعله ضمير مستتر فعلك مضارع دي همزة بالله باللوضو فاعلك سواء مستتر الوجوب إن لقرية أي واجبة هو أنا وفاعله لن أدعو ذا فاعل كاذي ضمير مستتر وضمير قرصون فيه سيكون قرصون وجوبا واجب نما أيانا لو قري تقديره حوي أنا مركا أنا ذا هدات سي عرابي واحد أرنيسها ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بكرا مفعول به ومفعول به منصوب ولا نسبيه وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة فتحة كم مغتوي لأنه اسم مفرد. لن أرمي عمرا عمر مجنيه أو وحكو مجنيه رما يرمي أرمي لن أرمي مركا وفعل مضارع ياء ودمس ومعتل الآخر بالياء كاهرنا معتل الآخر بالواو بوها وإعرابه لن حرف النفي والنصب واستقبال أرمية فعل مضارع منصوب باللن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة لأنه فعل مضارع وفعل مضارع دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وفعل مضارع وحنس بيقلي ولم باك شيء آخر كيسنا وحبؤنا الحيرسا هدي ألف الدمبيسي ويكو قدران تهي تصاليه نواك لن أخشى فقرا فقر كبقي ماهي وإعرابه لن حرف نفي والنصب واستقبال أخشى فعل مضارع منصوب باللن وعلامة نسبه فتحة مقدرة على الألف وفتحه ألف تلو قدري منع وحديد من ظهورها إن موقت التعذر عذرته يعني مستحيل وهي ألف أخشى وحال إلى ألف لمسا ألف سبسبة ويو حركة ويكسيبا المركة حركة ما أقبلش لا تقبل الحركة لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالألف ساسا لو قدري مركة فاعل كينا وصدي كوي هرو يعني وحوي كوي هرو كلويانو وحال أرانيا وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا
taqdiiruhu ana unbaa la odhanaya oo lasoo qadarayaayo meesha ku jirta sidii kuwii hore aan sheegayno o kale. ana icraabteeduna waa sidii aan ka sheekayno, allahuma salli calaa muxamed, sidii aan ka sheekaynay weeyaan. ana oo iyadana waxa weeye haddaad doon inaad sii ciraabto waa damiirun munfasilun, waa damiir oo gooni u soocan, mabniyun cala sukuun fi maxali rafcin faacilun baa ayaa la odhanaya. intaa waxaan kaga soo baxnay mawaadicdii fatxa oo imisa mawdac ayay fatxadu degtay, 3 mawdac fi lismi اlmufrad wa jamci taksiir wاlficli اlmudaarici ida dakala calayhi naasibun walam yatasil biaakhirihi shay. marka ismiga mufradka ah marna way ka daahiri sida ra'aytu zaydan, marna way ku qadaran tahay sida ra'aytu lfataa, ra'aytu ghulaami iyo wixii lamida. sidoo kale jamcu tagsiirka marna way ka muuqan, marna way ku qadaran tahay sida ra'aytu rijaala, ra'aytu lhunuuda. marka ay ku qadaran tahayna ra'aytu lusaara, ra'aytu lcadaara iyo wixii lamida. ficilka mudaaric marna way ku qadaran tahay, waa marka alif ee u dambayso yakhshaa, marna iyo akhshaa, marna way ka daahiri oo wixii ka soo hadhay oo markuu saxiixul aakhirka yahay iyo markuu muctalul aakhiri bil waawi ama muctalul aakhiri bil yaa uu yahay, intaba way ka daahireysa. aanu gudubna marka qeybta labaad oo ah aliftii. haddaan ka baxnay mawaadicdii oo fatxada aynu ka baxnay, aynu u gudubna mawaadicdii oo allahuma salli calaa muxamed alifta iyadana aynu u gudubno. wuxuu yihi marka sheekh, wa ama alalifu aliftu fatakunu waxay noqon calaamatan calaamay noqon linasbi, nasbahay calaamo u noqon fi lasmaa'i asmaadii dhexdeeda alkhamsati ee 5 ah. wadalika naxwu ra'aytu abaaka wa akhaaka iyo wixii lamida wey. ra'aytu waxaan arkay abaaka aabaha, wa akhaaka walaalka, iyo wamaakii ashbaha lamida dalika labada oo 3dii kale ahoo xamaaka, faaka, daa maalin wamaa ashbaha dalika waa 3daa weeyaan ayuu yihi sheekhu. markii hore sheekhu wuxuu ugu horeysiiyey fatxo maxaa yeeley iyada asala, haddana wuxuu ku xijisiiyey alifti markuu ka hadlayay. limaada? liannahaa bintuhaa, waa gabadheedii fatxada ayaa dhashay, fatxada gabadheedii weeye aliftu. limaada? maxaan ka wadnaa fatxada gabadheedii? yani waxaa weeye dee alif oo dhan maxaa ka horeeya fatxa? haddaa fatxaa ka horeysa, markii fatxa la helo unba alif la helayaa, ba taa markaa tira markaas ayaa la helayaa. haddaan dee fatxa la helin lama helaya alif. saa darteed ba waxaa la yidhaha waa bintulfatxa, fatxada gabadheedii weeye, saasuu ugu xijisiiye. marka fatxadu waxay nasbada iyadu fatxadu waxay ahayd asal, laakiin aliftu naaib bay ka tahay. marka waxay hal meel keliyay degtaa, iyadu waa asmaada la yidhaah, asmaaulkhamsaha la yidhaah ee horey aan shuruudoodiina usoo marnay, baaburafca aan kusoo marnay weeyaan. marka tusaale haddaan ka qaadano ra'aytu abaaka aan icraabno, kuwa kalena marka waa lamid 5 kale. ra'aytu abaaka, ra'aytu waxaan arkay abaaka aabaha. wa icraabuhu ra'aytu ficlun wa faacilun, abaaka mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alif. abaaka aliftaasaa nasba ah, niyaabatan xaalo ay tahay tii ka wakiila can ilfatxati fatxadi. limaada? maxaan alif calaamatu nasba uga dhignay? liannahu abaakadu min alasmaa'i buu ka mid yahay alkhamsati, asmaada 5 ah ayuu ka mid yahay. wa abaa mudaaf walkaafu mudaafun ilayhi. abaaka mabniyun, kaafka waa la bineeyey cala alfatxi baa lagu bineeyey, ilan waa damiire fii maxali jarin, hoos dhig maxalkii buu yaalaa oo ilan mudaaf ilayhi weeye. mudaaf ilayhi maxalkiisuna waa jar, hoos dhig weeye weligii yaalihi, ama ha ka daahirto ama xagga maxalka ha ka hoos dhignaado ama xagga taqdiirta. waad gaari doontaa insha allah. marka hadda mid baan mithaaline 4 kalena uga qiyaaso. masalan ra'aytu abaakan hadda nidhi, ra'aytu akhaaka u bedel, ra'aytu xamaaka u bedel, ra'aytu faaka u bedel, afkaagii baan arkay. xamaakana sodoga ama seediga. ra'aytu daa maalin, maal mid u saaxiiba oo hodan ah oo hani ah ayaan arkay. marka adigu maaragtay icraabtii unba intii hadda aan sheegnay intii unbaad saaraysaa. wax yar bay ku kala duwanya. daa maalin oo kale, maalkaasaa mudaaf ilayhi majruur,
wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun baa isaga la odhan, waa mudaaf ilayhi ay ka daahirtay. kuwa kale laakiin waa lamid. aan usoo gudubna marka kasradii. muxuu yihi sheekhu marka wa ama alkasratu kasradii markaan kasoo fatxadii aan kasoo baxnay, wuxuu yihi sheekhu wa ama alkasratu kasradii fatakunu waxay noqon calaamatan calaamay noqon linasbi nasbahay calaamo u noqon fii jamci lmu'anathi jamcii dhadigaa asaalimi ee nabadgalay ayay ugu noqonaysaa. booskaa keliya ayay degtaa. fatxada waxaan ujeedaa kasradu waa hoos dhig, yani waxa weeyaan khali baalak waa xaraka ka naa'ib noqonaysa. hoos dhig maanta kordhig noqonaya weeye oo lagu leeyahay waa kordhig lagu leeyahay. hana la yaabin waa naxwada qaanuunkeeda weeye kaa weeyaan. marka u fiirso khaldamin. wuxuu ku yihi wa ama alkasratu kasrada waa hoos dhigii aad taqiinay, fatakunu waxay noqon calaamatan bay linasbi u noqon fii jamci lmu'anathi jamcii dhadigaa asaalimi ee nabadgalay ayay ugu noqonaysaa. marka iyadana markii uu fatxadii kasoo baxay ayuu kasradii ku xijisiyey. maxaa yeelay kasrada iyo fatxadu dee xarakay isla yihiin, saas darteed ayuu iyadana ugu xijisiyo. waxa ka dambeeya dee waxa weeye ya iyo xadfunuun unbaa ka dambeeya. marka iyadaa kaga xaqla in lasoo hormariyo maadaama xaraka ay isla yihiin. hal mithaal aan qaadana xagga icraabta oo jamcu mu'anathu saalima isagana mid basiida iska qaado. ra-aytu lhindaati, ra-aytu waxaan arkay alhindaati, gabdhihii oo hindooyinka ahaa. hindo iyo hindo 3 gabdhoodu la yidhah. wa icraabuhu ra-aytu ficlun wa faacilun, alhindaati mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alkasra. kasradaasa hoos kordhig u ah niyaabatan xaalo ay ka wakiil tahay can ilfadxati. limaada? liannahu jamcun mu'anathun saalimun, waa jamc dhadigoo nabadgalay. jamca mu'anathkee saalimkaana waxaa calaamatu nasbo u noqdo oo lagu yaqaan naxwada dhexdeeda kasro. sidaas ayaad ku cilaynaysaa. maxaa lamida qur-aanka oo kale wa khalaqa allaahu asamaawaati ayaa lamida. khalaqa waa ficil maadi, allaahuna waa faacil, asamaawaati waa mafcuulu bihi. ilaahay wuxuu abuuray samaawaatki. wakhalaqa allaahu eebaweyne wuxuu abuuray asamaawaati. marka asamaawaati waa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alkasra niyaabatan can ilfadxati liannahu jamcun mu'anathun saalimun baa odhanaysa. haddana ya-dii ayaan meeshan ka gelaynaa. markuu sheekhu uu kasoo baxay labadii hore ayuu deedna ya-dii ka gelayaa. wuxuu yihi sheekhu wa ama alyaa-u ya-dii fatakunu waxay noqon calaamatan calaamay noqon linasbi nasbahay calaamo u noqon fi tathniyati tathniyada. marka fi tathniyati fi lmuhanaa baa hadda looga jeeda ismiga la labeeyey iyo waljamci jamca jamcaas oo ah jamca mudakerka ee saalimka ah. ya-du laba meelood ayay noqotaa. laba meelood bay ya-du ayay ka naa'ib noqotaa fatxada oo calaamatu nasba ay noqonaysa ya-du. tathniyada ismiga muhanahee labada ah iyo ismiga jamca jamcaas oo loo jeeda jamc mudakar oo saalima. maxaa yeele kolba haddii lagu laro tathniyada iyo jamc haddii laysku xijisiiyo waljamci la yidhaah jamc mudakar oo saalima loo jeedaa ee jamcu taksiir iyo jamcu saalim looma jeedo. marka tacriifkoodana hore aan usoo ogaanay oo tathniyo maxaan kusoo marnay, yani waa lafdun dalla cala ithnayni biziyaadatin fi aakhirihi saalixin litajriidi wa cadfi mithlihi calayhi. waa inagii nidhi soo sharaxnay cashirkii hore ee rafcada aan kaga hadlayn. jamcana jamcu mudakar saalim markaan xadaynaynay waa inagii nidhi huwa lafdun dalla calaa akthara min ithnayni biziyaadatin fi aakhirihi saalixin litajriidi wa cadfi mithlihi calayh. tacriifaadka haddaan sheegaya inaad xafido waa lagama maarmaan. inaad xafido oo aad dusha ka qabato macnahoodana si fiican aad u fahanto. maxaa yeele waxaan ku sharxnay cashirkii hore ayaynu ku sharxnay yani u noqo. aan soo qabsana marka muhanaha. tathniya waa masder laakiin waxaa loo jeedaa ismi mafcuul oo muhana kii la labeeyey. marka ismigii muhanaha ahaa ee labada ahaa aan soo qabsano tusaalihiis. iska soo qabsan ra-aytu zaydayni, labadii zayd baan arkay. wa icraabuhu ra-aytu ficlu wa faacilun. azaydayni mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alyaa almaftuuxu maa qablaha. ya-dii la fadxiyey waxa ka horeeya oo daalkaa zaydayni.
almaksuuru maa bacdaha ee waxaa ka dambeeyana lahoos dhigay zaydayni. limaada maxay ya-du calaamatu nasba ugu noqotay muhanaha ismigan? liannahu muhanan wanuunu ciwadun can tanwiini fi lismi mufradi. zaydayni nuuntaa ku jirtana waxay ka ciwad tahay tanwiintii ismiga mufradka ah qabla tathniya tanwiintii ku jirtay zaydun ahayd, taas yani ayay ka wakiil tahay. mawdica labaad waa jamca mudakarkee saalimkee, bal isagana tusaale aan qaadano. ra-aytu zaydina unbaa isagana ra-aytu zaydina ayaa la odhanaya. wa icraabuhu ra-aytu ficlu wa faacilun. azaydina mafcuulu bihi mansuub. azaydina mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbiha alyaa. almaksuuru maa qablaha ee waxa ka horeeyay lahoos dhigay zaydi. almaftuuxu maa bacdaha ee waxa ka dambeeyana la fadxiyey azaydina oo nuunka. liannahu jamcun mudakarun saalimun, maxaa yeelay waa jamc mudakar oo saalima. maxaa lagu kala garanayaa jamca mudakarkee saalimka ah iyo tathniyada? xaalatu nasbada maxaa lagu kala garanaya? waxaa lagu kala garanayaa waxaa hadda aan sheegnay, oo hadduu muhane yahay ya-da waxa ka horeeya waa la fadxinayaa zayday baa la odhan, waxaa ka dambeeyana waa lahoos dhigi zaydayni. ama hadduu jamc yahay waa bilcagsi, oo ya-da waxa ka horeeya waa lahoos dhigi zaydi, waxaa ka dambeeyana waa la kor dhigi zaydina. mu'miniina, muslimiina, masalan mu'minayni, muslimayni. hadduu yani muhane yahay ya-da waxa ka horeeya la kor dhigi, waxa ka dambeeyana waa lahoos dhigi. hadduu jamc yahayna waa bilcagsi, oo waxa ka horeeya lahoos dhigi, waxa ka dambeeyana waa la kor dhigi zaydina ayaa la odhanaya. qaybtii ugu dambeysay shanaad oo xadfu nuuna ayaa haddana uu sheekhu ayuu inoo sheegayaa, oo xadafkii nuunta oo fadxadii ka naa'ib noqonaya. wuxuu yihi sheekhu marka: wa amaa xadfu nuuni, nuunka oo la gooyo, fa yakuunu wuxuu noqon nuunka oo la gooyo calaamatan buu noqon, calaamo linasbi, nasbuhu calaamo u noqon fil afcaali, afcaashii dhexdeeda alkhamsati ee shanta ahayd. allatii afcaashii rafcuhaa godowgeedu bithabaati nuuni, nuunta oo loo suga ay ahayd. marka afcaal khamsa waxaa ka ficinayd amhilatu lkhamsa in la yidhaah, laakiin sheekha ayaa yidhi waxba dhibaato male. heelshana muxuu inoogu sheegayaa afcaalulkhamse waxaa calaamatu nasba u noqda nuunta oo la gooyo un. afcaalulkhamse maxay tahay? waan kuu sheegayaa. afcaalulkhamse waxaa la yidhaah ficil mudaaric oo damiiru tathniyatin lala xidhiidhiyo alifah, ama damiiru jamcin lala xidhiidhiyo waaw ah, ama damiiru lmu'anahati lmukhaadabati, haweeney dhadig oo lala hadlaya damiirkeedao ya lala xidhiidhiyey ayaa afcaalulkhamse la yidhaah. waxaana afcaalulkhamse loogu magacaabay marka alifta lala xidhiidhiya labaa ka imanayso. masalan waxaa la odhanayaa lan yafcalaa, lan tafcalaa. lan yafcalaa fali maayaan labadii, lan tafcalaa fali maysaan labadiinanow, oo ta'du waa khitaab waxaad la hadlayso, ya-duna waa geyb wax maqan. marka wowga lala xidhiidhiyana labaadaasoo kale ka iman, oo marna ya baad ugu bilaaban marna ta, oo ya-duna wax maqan bay ku tusin, ta'duna wax lala hadlayo. oo waxaad odhan lan yafcaluu fali maayaan, jamicii maqnaayo ragga ahaa. lan tafcaluu fali maysaan, jamiciinani hor fadhiyo in la hadlayo fali maysaan. hadday haweeney tahay iyadu waa mid un, oo ta un baa loogu bilaaban, wax kale kama suurowdo. lan tafcalii xaliimoy fali maysid, lan taquumii istaagi maysid, lan taqra'ii akhrin maysid, lan tajlisii fadhiisan maysid, lan taquulii odhan maysid. iyadu waa ta un had ya jeer oo khitaaba, oo waxaa la yidhaha ya-daana yaa-ul mu'anahati lmukhaadabati. idan saddexdaa midkood, damiiru tathniyatin oo alifka ah, damiiru jamcin oo wowga ah, damiiru lmu'anahati lmukhaadabati oo ya-da ah, saddexdaa mid kamid a haddii lala xidhiidhiyo ficilka mudaaric afcaalu khamsa la yidhaah, yaa isdilaaxa layska yidhaahdaa. laakiin waa ficil mudaaricuna, meesha wax shana meesha ma yaalo. tusaalooyinkan baa shan laga dhigay, waa ficilkii mudaaricun weeyaan. marka laakiin sidaasaa loo yaqaana, adna sidaa isaga baro. bal hadda deedna shantooda aan saddex icraabood ka bixino. matalan lan yafcalaa walan tafcalaa, labadaas ya-di iyo taadun bay ku kala duwan yihiin. lan yafcalaa fali maayaan, labadii maqnaa.
lan tafcala fali maysaan labadiinano waicraabuhu lan xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin yafcala ficlu mudaaricun mansuubun bilan waa ficil mudaarico waxaa lagu nasbiye lan wa calaamatu nasbihi kordhigiisa calaamadiisuna xadfu nuuni waa nuunta la gooyey oo asalkiisu wuxuu aha yafcalaani intayna lantu gelin walalifu faacilun alifkaa oo yafcalaa ku jirana waa faacil walan tafcalaana waa iyaduna waa la mid oo saasoo kale unbaad iyadana u icraabaysaa xagga icraabta waa iskaga mida ogow lan yafcaluu fali mahayaan walan tafcaluu fali maysaan waicraabuhu lan xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin yafcaluu ficlu mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi xadfu nuun walwaawu faacilun walan tafcaluuna waa la mid oo iyaduna xagga icraabta waa iskaga mid lan tafcalii xaliimoy fali maysid waicraabuhu lan xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin tafcalii ficlu mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi xadfu nuun walyaau faacilun cashirkeennu maanta inta ayuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam